الحمد لله الذي خلق العباد لعبادته، والصلاة والسلام على من بعثه الله لتوجيه العباد إلى عبادة رب العباد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegayste waan ku salaamayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha ku siiyo. Waxaan jeclaystay in aan kuu soo jeediyo kelimad ku saabsan qofka basharka ah ee Allah jalla wacala caabuda inuu yeesho camal qarsoodi ah oo asaga iyo rabbigiisa u dhaxeeya, cidnaana ay la ogeyn. Wuxuu leeyahay suubanuhu, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, Ilaahay waxa uu jecel yahay addoonka cabsada oo rabbigiisa ka baqaaya, haddana dadkana ka kaaftoomay oo naftiisa ka kaafiyay dadka, haddana dadka aan isku muujin, arrimo fara badan isaga uu leeyahay qarsanaya. Waxyaabaha dadka basharka ay qarsadaan waxaa ka mid ah oo muhiim jiddan ah sirta. Ma iska dhaadhicisay ama ma ku fikirtay hal marna inaad yeelato camal sir ah, cidnaana ay ogeyn, oo adiga iyo rabbigaaga idin dhaxeeya? Waxyaabahaasi acmaasha ah ee sirta ah waa waxyaabaha qofka basharka ah badbaadiya. Waxyaabo fara badanna Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga difaaco. Waxaa ka mid ah dunuubta, inuu Ilaahay kaaga tirtiro camalkan khafiga ah ama aad qarisay. Suubanuhu mar labaad wuxuu leeyahay, sida alimaamu Tabaraani Mucjamulkabiirka uu ku warinayo, xadiiskii kasii horreeyeyna Muslim baa soo saaray fii saxiixih. Wuxuu leeyahay suubanuhu, sadaqada sirta ah waxay demisaa cadhada Rabbi, cadhada Eebbaha ayay demisaa. Idan waxaa loo baahan yahay wax sir ah oo adiga kuu qarsoon, cidnaana ay kula ogeyn, oo adi iyo rabbigaaga ah, waa inaa aad ku dadaashaa. Wuxuu leeyahay saxaabiga loo yaqaano Azubayr ibn al-Cawaam, Ilaahay ha ka raali noqde, mid iniga nigamida hadduu awoodo inuu yeesho camal u qarsoodi ah, ha sameeyo. Waxaa warinaya ama soo wariya hadalkaasi alimaam Abu Daawuud kitaabkiisa Zuhdiga ayuu ku soo wariyey. Wuxuu leeyahay ninka loo yaqaano Cabdillaahi ibnu Daawuud al-Khuraybi waxay ahaayeen salafkii ama dadkii inaga horreeyey kuwa jeclaa inuu ninku yeesho ama qofku inuu yeesho camal wanaagsan oo gaar u ah, xataa haweenaydiisuna ay ogeyn, cid kale iska dhaafe. Tahdiibul Kamaalka ayuu ku yaalaa juska 14. Waxyaabaha qaraa'ibka ee cajiibka waxaa ka mid ah, laakiin hadda zamankan aan taagannahay cagsi baa socda, taasoo ah habeenkii markaan guryaha ku soo hooyanno in acmaasha xunxun aan qarsanno, laakiin bannaanka marka aan joognana aan isku muujinno dadka hortooda inaan nahay dad Ilaahay ka cabsada oo cibaadaysta. Maxaa ka daran habeenkii markaad godashaada ku soo hooyato inaad dadka xamato, inaad dadka caydo, waxaad doonto intood iska tiraahdo, beritoolena aad iska dhaadhiciso inaad tahay dadka ka ugu fiican. Maya waxaa laga yaabaa inaa habeenkii isha dadku kuma arkayso intood istiraahdo xumaan oo dhan aad qasato. Ma ogsoon tahay in Allah subxaanahu wa tacaala ishiisu ayna seexan oo uu ku arkaayo, bal uu og yahay waxyaabaha laabtaada ku wareegaya. Ilaahay inuu og yahay, war ma u haysaa? Haddaad war u haysid oo jawaabtaadu ay haa tahay, haddaba maxaad la indha adag tahay? Maxaad u caqli maxaad u yeelan la'dahay? Maxay tahay waxa ku hortaagan? Inaad su'aalaha isweydiiso laabudda weeyaan, waa muhiim jiddan oo loo baahan yahay. Haddaba ninka loo yaqaano Cabdillaahi ibnu Mubaarak waana shaykhii alimaam al-Bukhaari mucallimkiisa ahaa. Wuxuu ahaan jiray nin marka uu jihaatamayo wejigiisa ummadda ka qariya
oo mara ku duuduuba. Sababkuna maxay tahay? Si ayna dadku u garan oo loo odhan waa kan dagaalamaya. Alimaam Axmed bin Xambal baa wuxuu leeyahay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala kor umuu yeelin Cabdillaahi ibnu Mubaarak oo magaciisa iyo darajada intaa la eg muusan yeelan, ilaa wuxuu lahaa acmaal iyo arrimo qarsoodi ah oo cidnaana ay ogeyn ilaa Allah subxaanahu wa tacaala uun maahine. Hadalkii hore ee Cabdillaahi ibnu Mubaarak iyo ka Axmedba waxay ku jiraan sifatu safwa, juska 4 ayay ku jiraan. Haddaba qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay in uu ku dadaalo in uu calaaqa la yeesho rabbigiisa. Raggii hore ee salafka waxyaabaha laga soo guuriyo waxaa ka mid ah ragga qaarkood in kitaabka ay akhrinayaan qur'aanka ah inay hoos gelin jireen marmarka qaarkood sariirta hoosteeda hadday dadii u soo galaan, iyaga oo qarsanaya acmaashooda. Waxaa kaloo la sheegaa in la weydiiyey ninka loo yaqaano Ibnu Xasmi al-Dhaahiri, in la weydiiyey, ma ii sheegi kartaa shay cibaado ah oo dadku iyagoona ogeyn aan samayn karo anoo dadka dhex jooga? Markaasuu wuxuu ugu jawaabay ardaygii weydiiyey su'aasha, waa kelimadda laa ilaaha ila allah bas. Sababkuna haddaad u fiirsato ereygaasi, afka lama dhaqdhaqaajiyo ee carabka ayay ku kooban tahay xuruuftu. Saas darteed markaa qofku dareemayo ma jirto. Laakiin markaad ku xigsiiso qaybta labaad oo ah Muxammadun Rasuulullah, miimkii ayaa bishimuhu ka dhaqdhaqaaqaya, dadkuna way ku dareemayaan. Waxaa loo baahan yahay dhegayste inaa camal gaar kuu ah adiga iyo rabbigaagana ay isla ogtihiin oo wanaagsan aad samayso. Laakiin camal xun oo adi iyo rabbi aad isla ogtihiin inaad samayso, ka digtoonow. Intaasi ayaa waanadaydu ay iga tahay. Hadalkana inta ayaan ku xidhayaa dhegayste. Khayr baana idin rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.